bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxa jira xanuun halis ah oo la yiraahdo coronavirus fadlan foojignow xanuunkaasi wuxuu leeyahay aafo halis ah si fudud ayuu ku faafaa isku day inaad mar walba foojignaatid naftaada inta qoyskaaga badbaadin waxa uu gaaf wareegayaa wadooyinka waaweyn xaafadaha iyo suuqyada Muqdisho waa muwaadin si iskiisa isugu xil saaray wacyigelinta bulshada uu ka dhashay magaciisu waa Axmed Aadan Xaashi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Muqdisho aniga hawshan markii hore dhalinyarada wacyigelin jiray laakiin hadda xanuunkan taagan coronavirus adduunyada oo dhan ay xoog wada saareen sidii dadkooda u badbaadi lahayn aniga taas ay igu kaliftay alxamdulillah hawshan qofna iguma yani taakulayso qofna waxba iguma siiso dawladna waxba iguma siiso si iskii oo muwaadinimo aniga aan u qabtaa maalin walba joogta wacyigelinta waxaan u adeegsadaa baraha bulshada oo aan kala hadlaa dhalinyarada dadkii kalena magaalada joogana lugteedan ku gaarsiiyaan xilliyada roobabka ama ay jirto qoraxda kulul ma ahan mid gabaad raadsada ee dadka ayuu ugu digaa halista caabuqa safmarka ah ee COVID-19 oo dunida oo dhan bacagta mariyay baahi taagan awgeed ay ugu kaliftay dadkayga inaan wacyigeliyo wax u sheego midda xigtaani waxaan isticmaalaa waa mikrofonkeyga iyo lugteeda baawar ma adeegsado bajaaj ma raaco intaas waxaan isleeyahay bulshadaadii aad wacyigelisid waxaan u dhaxmaraa qorax iyo roob baa u dhaxmaraa isaan bulshadii maalin walba aan u wacyigelaa ama qorax aan arko ama roobko da'ayaba intaas waxaan isleeyahay bulshadeedii yuuna qof kamid ah yuuna u geeriyoonin xanuunkaasi aafada ah ee dadka ku la'anayaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan ayuu si gaar ah u beegsadaa si uu ula hadlo dadka aad moodo inay kol horeba dhigaha ka fureysteen halista sida maalinlaha ah looga digayo waxaana booqdaa xaafadaha ilaamiyada iyo meelaha intaba dadka iskugu yimaadaan waxaan intaas u tilmaamaysanaa waxa weeyaan dadka wacyigeliyay waa dad wax dhageysta Axmed kol hore waxa uu dhalinyarada ka wacyigelin jiray dhibaatada ay leedahay tahriibta laakiin hadda dhalinyarada ayuu ugu baaqayaa badqabkooda iyo kan bulshada maadaama Soomaaliya ay kamid tahay wadamada la daala dhacaya cudurkii soo ifbaxay dabadyaaqadii sanadkii tagay ee 2019 dhalinyarada waxaan ka codsan ayaga bixitaankoodu badan yahay isku day marka inaad isticmaashid gloveska iyo baalada afka lagu xirta hadii aadan dan muhiim ah u bixinin hadaa dan muhiim ah u bixin gurigaaga joog hadii dan aad u bixaysidna fadlan isticmaal gloveska iyo baalka afka lagu xirto Soomaaliyeed waxa jira xanuun halis ah oo la yiraahdo coronavirus fadlan iska ilaali oo taxadir muujin meel walba joogtid ku dadaal Axmed waxa uu imika wadaa ololihiisii dadka oo ugu digayay faafitaankan caabuqa COVID-19 ee dunida gacanta baan ku haya waxa uu lugaynayaa oo uu gaaf wareegayaa dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho isagoo oo xaafad u maraya waxaana mararka qaar lagu arkaa suuqyada waaweyn ee Muqdisho iyo jidadka waaweyn ee Muqdisho waxa uuna dadka aad uga wacyigeliyaa in ay kala fogaadaan maadaama caabuqan isku soo dhawaansho iyo taabasho waxyaabo la nooca laga qaado mar walba leeg gacmaha dhaqda bicneedu waxa weey meel walba oo aad taabato ayaa wax ka soo qaadi kartaa marka waa muhiim mar walba inaad qaadatid talaabooyinka ama fariimaha ay gudbinayaan dhaqaatiirta oo la leeyahay laga hortago marka Ilaahay naga badbaado